guri waxaa sharmarka cabdinaasir maxamed ku nikahay maryuun maxamed cali oo meyrkeeda uu yahay $500 Mareykanka ah oona markhaati ka ah axmed daahir jilda iyo jaamac maxamed aadan migaah bashar سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله ندعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان أصحابتي إذا خالقة ميل الباجوكتين إسي والباقي داونيسين الكايدة داونيسين والسيمبل إيمان مقعي وفاضل بشيرة دهتا أمريكا كبور ريسي channel كيربو صوبوقتو أما عاد أركتاو فيديو أنا أعلان هاي بليز سبسكرايب هنلاقي لوبين لايك نوشار كومنتي وحي فكرة قرط بدنا كومنتي وحي فكرة هو قرط بدنا وعدن كاغا أصحابتي خالقة soo dhawaada mar labaad maanta waxaa idiin wadaa maanta waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo fanaankeena qaaliga ah Sharma Boy oo aan leeyahay iyo fanaanadeena kaleeto milyan maanka waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay hambalyo wiil yacaano gabar iyo maxaa dhihi jiray lacag miya asxaabta qaaliga ah halkan ayaan uga hambalyeynayna maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo yani Sharma Boy iyo yani malyumaanka mar hadaa tagtay tiktokyada oo kaleeto goobaha maaragtay social media instagramka meelaha markaa tagtid yani waxyaalo badan la isweydiinaya oo yani marka qofka yahay qof caan ah oo wuxuu sababayaa in hadalhayntiisa uu bato ama uu guursado ama uu wax kusoo kordhaan marka Sharma Boy waa wiil soo fanaan ah oo ah fanaaniintii ugu dambeysay ee 2018 fanka shab soo dhahay oo naga waalay oo reexamar oo dhan ka waalay oo Soomaaliya oo dhan ka waalo ahaa maasha Allah waa salaameena halkaan ka salaameena asagii iyo xaaskiisa cusub milyan maanka waan u hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin la isla dhexmarayay baraha bulshada oo hadda aan soo magacaabay qaarkood TikTok-ga Instagram-ka meelahaas oo kaleeto oo yani aan la wareejinayay mihirka milyuun iyo Sharma videoyadaas aan daawano kadib aan falanqeyno asxaabta qaaliga ah videoga mihirka waaye videogan waxaa sharmarka cabdinaasir maxamed ku nikahay maryuun maxamed cali oo meyrkeeda uu yahay $500 Mareykanka ah oona markhaati ka ah axmed daahir jilda iyo jaamac maxamed aadan migaah bashar سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله ندعي. asxaabta muuqaalkaas wuxuu ahaa muuqaalka ugu badan ee Sharma meherkiisa laga soo duubay su'aalaha ugu badan oo la isweydiinayay waxaan rabaa hadda inaan ka hadlo waxa waaye sababta Sharma Boy isaga oo joogo dalkii hooyo meherkan uu ka dhacayo dalkii hooyo uu wakiil uga yahay sa u jeedinba qofka fadhiyo waxa waaye hadaa mar labaad idinkugu celiyo wiilka fadhiyo oo hadda u jeedno oo aan daawanayna waxa waaye Sharma Boy walaalkiis sana yani wuxuu matalayaa ama uu yani pretender u yahay ama matalaya Sharma Boy waxa arki jirnay aroosyo gabdho laga meherinayo Afrika ayagoo nimanka mehersanaya dibadaha jiraan yani qof wakiil looga dhigayo laakiin another level hadda waxaan joognaa xilli qofkii oo joogo isla dalkii isla magaaladii laga yaabaa maybe inuu qof kale wakiil u noqdo kolay su'aashaas hadda socoto aniga socdo oo laga hadlo isweydiinta mudan ayaan soo qaatay sababtana kolay aniga ahaan Faadmaan shakhsi ahaan ma garanayo laakiin maybe waxa laga yaabaa inuu safar ahaa ama howlo kale ku mashquulsanaa laakiin qofka bini'aadamka si walba howlo ugu mashquulsan waa maalinta kaliya uu adduunka ku leeyahay in uu yani guurkiisa yani uu jiro ama uu socdo maalintaas eto macnaha macquul may noqon kartaa in qofkii uu yani ka maqnaado at the same time meherkii markuu dhacay ka bacdi Sharma Boy wuxuu yani ku dhawaaqay ama loo arkay muuqaalkiisa isagoo safara isla markaasna kusii wajaan dalka Djibouti marka halkaas
waxaa ka cad in Sharma Boy fannaankeena qaaliga oo marnaba yani mar dhankiisaba yani ka cusleenba howsha oo yani wax walba ay ka haddana waxaa dhici karta in labada qof ay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen Soomaali Maxamed inay ka falanqeeyaan ama ka hadlaan ama ka murmaan ma ahan su-aasha kale xigta waxay tahay oo mar walba soo badato yani waxaa lagu meersaday 500 horta badanaa gabdhaha Soomaaliyeed haba u badnaadaan waxay aad u falanqeeyaan meherka qofka meherka horeeyo la falanqeeyo wuxuu ahaa meherka qaaladan oo laga hadlo oo la dhahay waxaa lagu maansha 2,000 lagu meerisaana lagu meerikana lagu meeri laakiin mala socotaa qofka bini aadanka wuxuu asaga ku qanacsan yahay inuu asaga ku qanacsan yahay ilaan adiga laguma mehersanaayo oo adiga meherka ma lihid 500 aad sheegtay $100 hadda tahay 500 maanta waaba lacagbo talaad meherkana waa meherada markay kala yar yihiin ay kala fadli badan yihiin oo kala fiican yihiin yani meherku ka qaalisan yahay yani ma fiicno oo israaf iyo waxyaalo qaar meesha soo gala hadii qofkii waxa dhaaf ah lagu meheriyo aniga ra'yi ahaanteedii fikir ahaanteeda waxay ila tahay milyan maanka inay dooqeeda ka dheeshay oo iyada wixii rabta markaas ay isku meherisay because adiga lagu meersanayo adiga hadda wax soo qoraysid adiga commentiga bixinaysid adiga qaylinaysid yani adiga lagu meersana qofkaas la meersanaya soo maaha qofka wixii asaga uu markaas uu yani asaga uu maskaxdiisa ka soo gaaray markaas asaga wuxuu ku fikiray wixii labada qof ku heshiiyeen yani ma ahna meerka la iskala soo ordo oo yani la iska dhaho intaas lagu meersana laakiin labada meerka waa laba qof oo meel wada fariistay oo dhahay maxaa isku meersan karnaa intaas iyo intaas labada qof marka ka soo heshiiyaan kadib ayay soo bandhigi karaan oo banaanka keeni karaan laakiin ay qofna kama hadli karo laba qof oo shakhsiyadooda ayaga ay leeyihiin oo dad waaweyn ah oo dad macquul ah in ay ka hadlaan yani xaq uma lihid inaad ka hadashid oo dhahay ilaa haday 100,000 lacag Soomaali tahay xataa yani kama hadli kartid adiga oo ma dhigi kartid intaasaa lagu meeriye sidada banaanba dadka Soomaalida ahna badankood waxay jecel yihiin inay falanqeeyaan waxyaalaha kaleeto yani markii positive waxaan ay yihiin waxay jecel yihiin dhinaca positive inay ka guuraan oo dhinaca negative ay falanqeeyaan mar walbana kulay ma dareemi karnaa anaka yani maybe adiga sidaabanaya laga yaaba hadda inaad adiga naftirkaaga yani dareemaysid oo leedahay maxaa camal waa laga hadlaa saan waaye inay waxaasoo kale ka dhex guuxayaan oo laga yaaba laakiin su-aal isweydiin mudan way jiraan oo hadda aniga xataa shaqsi ahaan aniga inta fadhiyaan isweydiinayo inaa been ka sheega qalbigayga ma fiicno because waxaan is leeyahay meerkio isagoo markaas awoodo isagoo joogo meeshii yani goobtii wax lagu meherinayo oon ka fogeyn oo dalka ka maqnayn yani dalka Soomaaliya waa Soomaali ama Hargeysa ha jiro ama Garowe ha jiro ama Muqdisho ha jiro just one ticket oo diyaarad lagu tago meesha markaas meherka ka jiro ama uu ka dhacayo unba markaas yani mar walbana muhiim waxa waaye in meeshii meherka ka dhacayo uu qofkii joogo hadduu dalkii joogo hadduu maqan yaho dal kale fog jiro waqti badan ay qaadanayso inuu imaado ama way dhici kartaa laakiin haddii qofkii oo joogo hadduu qof kaleeto uu u noqdo wakiil yani way banaanta wakiil waa isku noqdaa mar walbo laakiin adigoo joogo waa laga qurux badan yahay taas ani waa isweydiinayaa hadda tan kale isweydiinaya waxay tahay xilligaaga xilliyada ugu quruxda badnaa oo ahayd xilliga aad guursanaysay oo guurkaagii oo miiska saaran oo aad mehersatay in haddana aad maxuu ahaa aad samaysid aad dhahay safara ahay hadda maantaan baxaya yani kole dadka way ku heshiin karaan oo ayada raali lagu noqon karto oo markay soo laabtaan oo kaleeto hadda waa iska meher markay soo laabtaan oo kaleeto maybe inuu iska dhici doono arooskooda xalfadooda kadib ay qaban qaawsadaan oo sas u tuntaana waa iyadana wax fikir kale oo meesha ku jiro waaye fanaankeena waxaa leenahay hambalyo ilaahay ka dhigo kuwii yani ilaahay idinka dhigo kuwii isku waaro uwad kheyr qaba kala helo wiil iyo caano gabar iyo lacag wax walba idin rajeynayna insha Allah qoyskii lagu nasto lagu nagaad Allah idinka dhigo kulli intaas unba waaye way aan usoo bandhigteen barbariyadiina waa in dadka Soomaaliyeed ay idin soo dhahaan hambalyo waa intaas Soomaali muhiimada milyan iyo kulli Sharmana ma aha dad hadda xiriiradooda hadda soo bilowday ma aha dad hadda isku cusub oo laba fanaan oo heeso hore isla soo qaadeen waxay kale isla soo qaadeen heestan
ما معانا ونقدقيا إن شاء الله حرجينا إن يصدقدان إن أصحاب تقاليجا هديت أمريكا كوجو ريسي أو أجنال كي يصوب وقته إن بليز سبسكرايب نجي لوين لايك تدق نوسي لايك تنصر ولا القالي أدان صوت دعوة أمر جنال كان دول ما تو لايك تهنا بقيل لايك تنصر وحي فكرة أنا وصلنا وراب أنت عم برنامج كان برنامج كي حكوا كل مدن وحي إسكو أغنى سدايا أمان